عمر داهر علمي waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha sarsare ee xisbiga New Ucid ee goboladan Awdal iyo Salal waxa uu shirkiisan jaraa'id maanta ku qabtay Boorama ku falanqeeyay arrimo badan oo isugu jira duruufyada Somaliland xilligan ka jira iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay waxaana hadaladiisa kamid ahaa baaq aan u jeedinayo ma ka tirsan golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salal iyagoo ka hadlayay waxa khilaaf ku sheegayeen oo لحية لم حيعد مدحوينها هي مدحوين كردينك أما قارن هو كوبان يهي سده واحد فلنته شرع دجنته يو قرصورك دستورك واحد قعد واحد فلنته أي كوبان تاي مدحوين كردين يقولوا وسيره سياسة الدركنا واحد يقول سنتاي ولا تشي ما يمضنين هو حان شرين لبونبونيو xubnaha golaha wakiilada ee arinta fargelinta ku sameeyay ee sheeganay in ka soo jeedaan gobolka Awdal waxaan leeyahay waxa idinku waajiba inaad xukuumadda siisaan tilmaan iyo talooyin ku saabsan siyaasadda lagu hogaamiyo dalka arrimo badan oo xasaasiya qaranka ka jira haday tahay xag nabadgelyo haday tahay xag siyaasadeed laakiin inaad boonboonisaan ma ahayn ama aad يعني أذكر قرب سيسان مدحوينها هي مدحوين كحجينك قبل كاودل واحد شرا درين بدن حديت تاعي حق ماموركا حديت تاعي حق عدالة حديت تاعي حق شقالة حديت تاعي حق وحقوتك واحد يقول شبهها إلى درين كاكا على الشان وضد كذا صوت دورتي واحد طبعاً ودونتان هذا يقول arrinkan shalay dhacay waxaan u arkaynaa inaad ku xirantihiin xubno wasiiraa oo khilaaf ka dhex abuuraya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waan ognahay baarlamaanku inuu muddo dhaaf yahay maanta xubnaha xataa ku hadlaya halkan lama garanayo xisbiya ay ku fadhiyaan run ahaan waxaan ka soo baxnay maaragtay doorashadii golaha deegaanka taasoo aan ku guuleysanayna ka mid noqono xisaabta qaranka imikana waxaan diyaarinaynaa qorshihii sidoo dalku u heli lahaa diiwaangelin annagoo xukuumadda ugu baaqayna in la hirgeliyo barnaamijkii diiwaangelinta iyo tirakoobka dadka lagu samayn lahaa oo loo wada leeyahay oo aanay xukuumaddu kaligeed fulin Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama